Pro Electronics casharkan waa casharkii afraad waxa uu ku saabsan yahay diodeska ayuu ku saabsan yahay waxaana idiin soo diyaari Somtronics casharkan wuxuu la socdaa casharkii saddexaad oo aan kaga hadalnay semiconductors diodeka waxa uu ka mid yahay semiconductorska ayuu ka mid yahay marka casharkii hore fiirso intaadan casharka aadan u soo gudbin marka linkiga kor aan ku dhejin doono please riix si aad u fiirsato casharkii hore p-n junctionka diodyada loo yaqaano waxaa ka mid ah rectifiers kaas oo u bedelo AC wax loo yaqaano alternate current to DC signal diodes asagana wuxuu ka mid yahay diodeska asana waxaa loo isticmaalaa voltageka in aad ku yareyso waxaa ka mid ah photodiode oo loo isticmaalo in uu iftiinka u detect gareeyo ama uu noo sheego meeshaas inay iftiin jiro ama light uu jiro waxaa kaloo jiro laser diode wax loo yaqaano asagana noo soo saarayo laser loo isticmaalo waxaa kaloo jiro zener diode oo loo isticmaalo ingiriiskana lagu yiraahdo voltage limiting diode wuxuu limit gareeyaa ama uu cadadaa korontada ama voltageka meesha marayso waxaa kaloo jiro Schottky diode oo loogu magac daray engineerkii Schottky oo soo saaray semiconductorka loo yaqaano Schottky waxaana uu ka mid yahay Schottky diodeska waxa loo yaqaano rectifierska kuwaas oo loo isticmaalo AC to DC waxaa kaloo jiro varactor diode iyo tunnel diode kuwaasna waxaa loo isticmaalaa microwave-ka ayaa loo isticmaalaa microwave signalka waxa loo yaqaano oo high frequency-ga waxaa kaloo jiro wax la yiraahdo LED asagana oo aad la socotaan oo LED light emitting diode oo different colors waxaa kaloo loo isticmaalaa nalalka diode-ka noocyo kala duwan ayuu leeyahay noocan waxaa loo yaqaanaa signal diode meesha madow waa cathode-kii meesha guduudka ahna waa anode-kii cathode-ku waa negative anode-kan waa positive kan waxaa loo isticmaalaa signal conditioning inaad signalka voltagekiisa aad ku ilaaliso ama aad ku yareyso noocan waxaa loo yaqaanaa 1N407 ayagana waxaa loo isticmaalaa power supply-ga ayaa loo isticmaalaa oo markaa bedelayso AC alternate current aad u bedelayso DC ayaa loo isticmaalaa meesha cad waa cathode-kii meesha madowna waa anode-kii waayo kan oo ka size weyn size-kii hore asagana 1N5408 sidoo kale waa ujeedaan size-kiisu waa ka weyn yahay sababtan waxay tahay voltageka iyo korontada uu xamili karo ayaa ka badan nooci kale cadka waa cathode-ka oo negative-ka blackana waa anode-kii ama positive-ka kan waxaa loo isticmaalaa sidoo kale AC ama alternate current sidaad ugu bedeli lahayd direct current marka diode-ku muxuu yahay diode-ku wuxuu ka mid yahay semiconductorska ayuu ka mid yahay diode-ka conduct current in only one direction diode-ka wuxuu korontada u gudbiyaa hal dhinac kaliya marka korontada waxay ka tegaysaa positive-ka iyadoo aadayso negative-ka kana waxaa loo yaqaanaa conventional current diode-ku wuxuu leeyahay wax loo yaqaano anode oo ah qaybta madow iyo cathode oo leh line cad leh ama line madow tan waxaa loo yaqaanaa cathode ayaa loo yaqaanaa calaamadda lagu gartana simbolkiisana waa calaamadda ujeedaan oo ah qaybtaas falaarta oo kale ah iyo line-ka isjaraya marka diode-ka laba nooc ayuu u shaqeeyaa nooca ugu horeeya waxaa la yiraahdaa forward bias kaas oo mathalayo sida adigoo switch xirtay maadaama voltageka ka imaanaysay source-ka ama batteriga pluska uu ku xiran yahay anode-ka negative-kan wuxuu ku xiran yahay cathode-ka waxaa dhacayso korontadii waxay ka tegaysaa positive-ki waxay maraysaa anode-ka negative-ka ayay ku gudbaysaa and then resistor-kaas ayay maraysaa resistor-ka waxaa loogu talagalay in uu limit gareeyo korontada marayso diode-ka marayso reverse markaan kan waa forward reverse markaan dhahno waxay la mid tahay ayadoo switch-ka uu furan yahay oo kale macnaha koronto ma ay gudbayso wuxuuna u xiran yahay negative-ka ayaa wuxuu ku xiran yahay anode-ki ayuu ku xiran yahay diode-ka positive-kiisi batteriga positive-kiisana wuxuu ku xiran yahay cathode-ki oo ahaa negative-ki marka korontadii ma ay gudbayso ka waxaa loo yaqaanaa reverse bias haddaan fiirino sida uu u shaqeeyo diode-ka sida la socotaan cathode-ka K ayaa laga soo matalaa waa negative-ka
anodekana positive korontadana waxay ka tagtaa pluska waxay aadaa negativeka kana waxaa loo yaqaanaa conventional current flow markuu diodetka forward u shaqaynayo sidan ayuu u behave gareeyaa lineka y-ga ah waxaa ku mathalaya korontada marayso kor wuxuu noo tusayaa pluska korontada ah macnaha inta waxay ka taagan tahay 0 ilaa some number oo plus ah halkaana waxay ka taagan tahay 0 ilaa negative ah wuxuuna aadaya ilaa microamps ayuu aadaya markii aan voltageka kordhino markaan gaarno 0.7 siliconka markaan gaarno waxaa dhacayso diodekii conductors korontadii ayuu conductor garaynaya marka korontadii way kordhaysaa taana waxaa loo yaqaana forward biased marka voltageka ee korontada ay ku kordhayso 0.7 for the silicon germaniumkana waa 0.3 maadaama silicon iyo germanium ay yihiin laba element ay yihiin conductionkooda waa uu kala duwan yahay korontadana waxaa loo yaqaana forward current sometimes waxaa lagu magacaabaa id oo ah diode current haddii aan u xirno diodeka reverse aan u xirno waxaan fiirinaynaa qaybtaas ayaan fiirinaynaa waxaa loo yaqaanaa reverse bias masalan haddaan ku xirno negative voltage aan kordhino masalanba sida hadda uu u xiran yahay haddaan voltagekan aan kordhino waxaa dhacayso heer wuxuu gaarayaa oo wax la yidhaahdo reverse breakdown voltage marka waxaa dhacayso korontadii ayaa ku qulqulayso diodeka marka waxaa dhacayso diodekii meeshii junctionka ahaa way halaabaysaa oo macnaha diodekii waa uu gubanaya ama uu halaabaya sidii hore aan usoo sheegnay diodeka korontada hal dhinac keliya ayuu u gudbiyaa masalan kan waa pluskii voltageka aan haysanana waa 1 volt so haddaan 1 volt aan marsiino diodekaas aan marsiino waxaa noo akhrin doonaa korontada marayso marka waxaan ku xirnay positiveki waxaan ku xirnay anodeka negativekana waxaan ku xirnay cathodeka oo ah negative markaan isku xirno sidaa ujeedaan waxaa arkaysaa ilaa koronto 33 milliamps ayaa marayo haddaan reverse sameyno taas waxaa loo yaqaanaa forward ayaa loo yaqaanaa haddaan u xirno reverse bias wax loo yaqaano oo aan ku xirno cathodeki cadka ahaa aan ku xirno positiveka aan ku xirno macnaha negativekii aan positive ku xirnay negativekii power supply ka imaanayna waxaan ku xirnay positivekii oo diodeka oo ahaa anodeka ayaan ku xirnay marka waxaa dhacayso sida hore usoo sheegnay waa reverse bias waaye sida ujeedaana wax koronta oo marayo ma ay jirto diodekaas marka waa reverse bias diodeka haddaan rabno inaan cabirno waxaan isticmaalaynaa multimeter ayaan isticmaalaynaa redka waxaan gelinaynaa meesha voltageka ohmska milliamp iyo microampka ayaan gelinaynaa blackgana waxaan gelinaynaa commonka ayaan gelinaynaa marka multimeterkan oo loo yaqaano ETEK city waxaan kusoo dhejin doonaa meesha laga helo hoos marka raadi marka waxaan sameynaynaa wuxuu noo sheegayaa markaan cabirayno diode markaan cabirayno calaamadiisa ayaan na tusaya calaamadiisa halkaa ku taalo sida ujeedaan anode iyo cathodeki marka meesha ayaan geenaynaa nalka ayaan daaraynaa marka waxaan sameynaynaa anodeka waxaan ku xiraynaa redka cathodekana waxaan ku xiraynaa blacka haddaan soo qaadano diodekan aan soo qaadano blacka waa cathodeka oo negativeka oo blackaan ku xiraynaa redkana waxaan ku xiraynaa dhinaca redka ah multimeterka markaa wuxuu u sameynayaa leadka labadan geed oo lagu cabiro ayuu wuxuu kusoo dirayaa 2.1 volts ayuu kusoo dirayaa marka waxaa marayso 2.1 volts ayaa wuxuu marayaa diodeka gudihiisa marka wuxuu sameynayaa wuxuu cabirayaa waxa loo yaqaano PN junction oo aan kasoo hadalnay marka PN junctionka markuu cabirayo waa inuu noqdaa around 0.5 to 0.8 volts hadduu intaa cabiro diodeka marka waa uu fiican yahay oo PN junctionkiisa waa okay marka markaan cabirno sida ujeedaan wuxuu cabirayaa 0.580 ayuu cabirayaa 0.579 something like that marka diodeka waa uu fiican yahay haddaan kala wareejino oo aan ku xirno cathodeka aan ku xirno pluska anodekana aan ku xirno negativeki oo qalad ah wuxuu noo sheegayaa
0.0 volts marka diodeki wuxuu u xiran yahay reverse bias sida hadda kor aan u sharaxnay waa reverse bias waxaan kaloo hadda soo qaadanaynaa another diodkana waa 5408 sida ujeedaan dhinaca cad wuxuuna tusayaa cathodeka dhinaca madowna wuxuuna tusayaa anodeka haddaan ku xirno pluska anodeka cathodeka oo negativena aan ku xirno negativeka oo meterka waxaan sida ujeedaan wuxuu cabirayaa around 0.525 volts oo junction voltageka ah marka diodeka waa uu fiican yahay haddaan taab gareyno 1N4001 data sheet waxaa noo soo baxayo data sheetya diodeka haddaan helno isticmaalno 4001 haddaan isticmaalno waxaa noo soo baxaya data sheetka oo rectifierska kuwa loo yaqaano 1N4001 ilaa 4007 haddaan rabno inaan ogaano breakdown voltageka oo reverseka haddaan rabno inaan ogaano or peak reverse voltage waa inaa fiirisaa masalanba 1N400 voltageka uu qaadan karo waa 50 wixii ka badan 50 waxaa laga yaabaa inuu gubto 4002 wuxuu qaataa 100 sidaas ayay u socdaan kan ugu weyn oo 4007 wuxuu qaataa 1000 volt ayuu qaataa marka haddaan rabno inaan ogaano how much current forward current uu qaadan karo korontada mari karto junctionkana waxa uu noqonayaa waxaa loo yaqaanaa IF oo average ah AV waxay ka taaganta average wuxuu qaadan karaa 1 amp ayuu qaadan karaa marka sidaa ayaa lagu ogaadaa diodka specificationkiisa tusaalahan waxaan ku xisaabtamaynaa sidii aan u calculate gareyn lahayn loadka voltageka korontada iyo awoodda diodka ayaan ka shaqaynaynaa waxaana la siiyey 10 volt waxaana la siiyey diode waxaana la siiyey 1 kilo ohm oo ah resistorkaas oo loo yaqaano loadkan wax kale maaha waa meeshii isticmaalaysay circuitkaas korontadiisa iyo voltagekiisa marka diodka wuxuu u xiran yahay sida ujeedaan forward bias sababtoo ah pluska wuxuu ku xiran yahay anodeka pluska marka sidee baan ku calculate garaynaa loadka wuxuu la mid yahay 10 volt sidaa la socotaan diodka PN junctionkiisa hadduu silicon yahay waxaa jira wax la yiraahdo voltage drop of junctionka PN junctionka ka dhalanayso 0.7 volts ah marka waxaan sameynaa voltageka inta ka tegey waxaan ka jaraynaa 0.7 oo isticmaalay ama dropka loo yaqaano ama meeshii ay martay marka waxaan helaynaa 10 volts minus 0.7 9.3 korontada marka waxaan isticmaalaynaa ohm's law ayaan isticmaalaynaa oo ah voltage oo loo qeybiyo resistance voltage loadka waa helnay waa 9.3 resistor loadkana waa naqaanaa waa 1 kilo ohm marka labada isu qeybiso 1 kilo ohm kilo waxay la mid tahay 1000 ohms markaa u qeybiso waxaan helaynaa 9.3 milliamp milliampkan wuxuu ka yimid 1000kaas markii kor la geeyo marka waxaan helnay loadkii waxaan helnay 9.3 milliamps awoodda haddiina warso diodka power dissipation ama power diodka wuxuu noqday 0.7 volts oo ah voltage dropka oo lagu dhiftay korontada maraysay oo ah 9.3 milliamp marka totalka wuxuu noqday 6.51 milliwatts ayuu noqday saas ayaan ku helnay loadkii iyo powerkii ama awooddii haddana waxaa idin tusaaya simulationka sida uu shaqeeyo circuitkii aan calculate garaynay haddaan simulation ku sameyno waxaan soo qaadanay 10 volts waxaan soo qaadanay diode waxaan soo qaadanay 1 kilo ohm oo resistor ah kaasoo ah loadkii meeshii ay ku dhacaysay quwaddii ka imaanaysa diodka iyo bateriga wuxuu u xiran yahay forward bias sababtoo ah pluska wuxuu ku xirmayaa pluska oo anodeka oo diodka cathodekana wuxuu ku xirmayaa resistorka iyo groundka haddaan daarno waxaan arkaynaa voltageka ka imaanayo bateriga waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaano conventional current flow korontadii oo ka tegayso positive kuna soo laabanayso negative korontada maraysa waa 9.3 sida aan u calculate garaynay wuxuuna u xiran yahay diodkan forward bias dhibcaha ujeedaan waa the current flow marka taas ayaa noo xaqiijinayso calculationkii aan sameynay